bismillaahir rahmaanir rahiim kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararkooda ugu waaweyn aan idin waxaa kamid ah mucaaradka iyo dawladda oo abaabul ciidan ka wada Muqdisho ka hor banaanbax la filay inuu bari ka dhaco Muqdisho xubnaha mucaaradka oo degay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir dawladda oo ciidamo badan dhigtay xaafado ka tirsan degmooyinka ay degeen xubnaha mucaaradka loolanka doorashada oo xilligan ka soconaysa Baydhabo iyo dhaqaaqyo siyaasadeed isku soo noqod wanaagsan daawadayaal inta daawateen waxay hayeen qodobadii ugu waaweynaa ee warkeena markana ku soo dhawaada iyagoo inta ka faahfaahsan aynu ku bilowno mucaaradka iyo dawladda ayaa abaabul ciidan waxa ay ka wadaan magaalada Muqdisho ka hor banaanbax la filayo inuu ka dhaco Muqdisho magaalada Muqdisho ayaa gashay jawi siyaasadeed oo aad u kacsan iyadoo si weyn loogu dareemayo dhaqaaqyo ciidan iyo abaabul siyaasadeed ay wadaan dawladda federaalka iyo xubnaha madasha mucaaradka ka hor banaanbaxyada la qorsheeyay in biri ay ka dhacaan magaalada Muqdisho hogaamiyaasha mucaaradka qaarkood ayaa degay xaafado ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir halkaas oo ay ka wadaan abaabulka banaanbaxyada iyo kulamo siyaasadeed oo la xiriira qorshahooda ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa la sheegay inuu ka baxay ciidaamka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho isagoo degay agaarka degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir waxaa sidoo kale saakil arkayay ciidamo iska soo horjeeda oo isku horfadhiya isgoyska dabka ee Muqdisho halkaas uu la sheegay inuu degan yahay ra'iisul wasaare Kheyre iyo xubnaha la socda dhinaca kale xaafadda Mirnaayo ayaa laga dareemayaa dhaqaaqyo siyaasadeed uu wado madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed taas oo muujinaysa sare u kaca dhaqdhaqaaqa mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna waxay kordhisay feejignaanta amni iyadoo ciidamo badan la dhigay wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho si looga hortago xaalad amni darro iyo rabshado ka dhasha banaanbaxyada la qorsheeyay banaanbaxyadan ayaa ku soo aadaya xilli dalku uu wajahayo xaalad siyaasadeed oo xasaasi ah iyadoo ay jiraan khilaafaadyo la xiriira arrimaha doorashooyinka amniga hannaanka dawlad dhiska iyo maamulka dalka hogaamiyaasha mucaaradka ayaa dawladda ku eedeeyay inay ku fashilantay wax ka qabashada caqabadaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee ka jira dalka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan ay kordhiso ciidanka ay dhigayso wadooyinka magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoona baqdin xoogan ee laga dareemayo magaalada caasimadda ee Muqdisho wali wararkeena ayaa daawanaysaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay kordhisay ciidamada ay dhigayso isgoysyada magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo sidoo kale xaafadaha ay degan yihiin xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradku xilligan ay u guureen waxaana markan ay muuqanaysaa in labada dhinac ay wadaan abaabul xoog leh oo ku aadan in mid kale awood ciidan ugu hortago qorshe walba ay wataan labada dhinac dawladda ayaa doonaysa in awood ciidan ay ugu hortagto banaanbaxa ay qorsheynayaan mucaaradka inay ku qabtaan magaalada dhankooda mucaaradku waxay u diyaar garoobeen inay ka hortagaan qorshaha dawladda federaalka ee Soomaaliya xubnaha mucaaradka qaarkood ayaa degay agaarka meel aan sidaas kaga fogeyn madaxtooyada Soomaaliya iyagoona u jira tillaabooyin aad u yar kuwaas oo doonaya inay ka hortagaan qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo muddo kororsiga sidoo kale saacadaha soo aadan ayaa la filayaa in dawladdu ay kordhiso ciidamada ay dhigayso wadooyinka caasimadda ee Muqdisho waxaana la filayaa in dawladdu ay qaado tillaabooyin kale oo hor leh kuwaas oo ku doonayso inay ku xakamayso banaanbaxyada Soomaaliyeed oo magaalada geesaheeda kala ah geesaha magaalada ah ciidamo hubaysan la dul tagay taasoo sababtay qalqal gelisay hooyooyin waayeela aabayaal iyo runtii dad xanuunsan oo dhiig kariyo sokor qaba waxaan isku daynay inaan la tacaalno niraahno war hubka caasimadda ka caagan sharciga xakamaynta hubka ee dhaqan galay ee golaha wasiirada ay ansixiyeen waad jebiseen waxyaabihii dhaci jiray ee aad ogeydeen oo hore oo ka dhacay saldhigga Wariili oo kale inay dhacaan ma rabno hay'adaha ammaanka caasimadda cid aan ahayn oo hub loo ogol yahay ma jiro hubka inaad dhigtaan baa leen ka rabaa waxaan ku far adeegaynaa oo la adeegaynaa waxay tahay war amnigii in la qalqalgelsha ma rabne gaadiid aan la garanayninna iska dhaafo gawaarida diiwaan gashan ee la og yahay ee amniga lagu sugo ee amniga xayndaabka amniga iyo sharciga amniga ku shaqay kara ee dhaqaaqi kara ee soco karana soo qaata hub naftiina aad ku ilaashataan waa la idin ogol yahay hubka sharci darrada oo 7ka iyo maaragta B9ka iyo maaragta beekaamyadaana iska joojiya intaas bay diideen annaguna waxaan leenahay mar kale ka foolajignaada ma ogolaanayno in ammaanka caasimadan loo celsho qalalaase iyo dhib iyo dhibaato
cidda mas-uuliyadda ay saaran tahay waa hay-adaha ammaanka. hay-adaha ammaankaan nahay, amniga ma siyaasadaynayno. waxaan leenahay hubkiinna uga soo tagta guryihiinna, cid idiin diidan ma jirto. warkaas waxaan u malaynayaa inuu dhan yahay hay-adaha ammaanka anoo ku hadlaaya taliyihii booliiska gobolka Banaadir ee caasimadan aan leeyahay banaanbax qof idiin diidan lama arko. meeshii lagu asteeyey imaada banaanbaxa. muwaadin Soomaaliyeed oo cabasho qabo banaanbaxa hadduu jirana ha yimaado, cid celinaysaa ma jirto. annagaa damaanad qaadayna. waxaan ka digaynaa marka intaas waa intaas. qodobka labaad, meelaan loo asteyn banaanbax in lagu banaanbaxo. sababta aan u diidaynana maad garanaysaan. sababta aan u diidayna waxay tahay goobahaas marka la isku yimaado oo aan amnigeedana lana astaynin, amnigeedana aan laga warqabin, waxaa ka imaanaya dad shacabka Soomaaliyeed in dhibaato ay ka soo gaarto, maalkooda iyo naftooda intaba. markana war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda NISA ayaa waxaa sidoo kale lagu faahfaahiyey in 2 howlgal oo saacadihii ugu dambeeyey laga fuliyey deegaano ka tirsan Hirshabelle, kuwaasoo lagu beegsaday horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsanaa Al-Shabaab. weeraradan oo sidoo kale ay ka qayb qaateen saaxiibada caalamka islamarkaana ka kala dhacay deegaanada Buuqable iyo Masaajid Cali Guduud ayaa lagu dilay horjoogihii qaraxyada Al-Shabaab ee Hiiraan iyo 28 kale. howlgalka koowaad oo ka dhacay aagga Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa lagu beegsaday goob lagu ururinayay ilaa iyo 70 xubnood oo loo diyaariyay weerar qorsheysan, iyada oo la dilay ugu yaraan 23 xubnood kadib xog ay NISA ka heshay goobta la isugu geeyay xubnahan. sidoo kale howlgalka labaad oo ka dhacay deegaanka Buuqable ayaa lagu dilay 5 dhagarqabe oo ka tirsanaa maleeshiyada kooxda Al-Shabaab iyo horjoogihii qaraxyada Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan, kaasoo magaciisa NISA ay ku sheegtay Cabdiraxmaan, magaciisa afgarashadana uu yahay Cabdimudallib. horjoogahan ayaa si gaara loogu eedeeyay inuu ku lug lahaa abaabulka iyo maleegidda falal argagixiso oo ka dhacay degmooyinka Buuloburdo iyo Jallaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan. hay-adda NISA ayaa shaaca ka qaaday inay sii wadi doonto beegsiga kooxda, islamarkaana ay ka hortagayso iskuday kasta oo ay kooxdu ku doonayso inay ku soo abaabusho weerarada ay ku carqaladaynayso amniga iyo xasiloonida dalka, ayaa sidoo kale lagu yiri warka. markana Baydhabo, wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa sheegaya in abaabulka iyo loolan siyaasadeed oo xoog leh laga dareemayo magaalada Baydhabo ee gobolka Baay, kaasoo ay wadaan xubnaha musharaxiinta ee madaxtinimada ee Koonfur Galbeed. xilli la filayo in dhowaan halkaas ay ka dhacdo doorashada hoggaanka baarlamaanka iyo sidoo kale tan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. loolankan ayaa sidoo kale waxaa la soo warinayaa in xubnaha siyaasiyiin ah iyagu ay isku tanaasuleen sida macluumaad kala duwan ay xaqiijinayaan, kuwaasi oo la soo warinayo in musharaxiinta qaarkood ay tanaasul xoog leh isku muujinayaan. Cabdifataax Kiisi oo ka mid ah xubnaha musharaxiinta ayaa la soo warinaya inuu u tanaasulay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka waqtigiisa oo dhamaaday Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, sida wararka ay sheegayaan. guud ahaan daawadayaal wararkii aad ka daawanayseen janalka waa anaga intaas. ammaan Allah.